wasiirkii hore wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa markii ugu horeysay ka hadlay warar lagu baahiyay baraha bulshada kuwaasi oo tibaaxaya hantida wasiirka. Dr. Beyle ayaa sheegay in wararkaasi ay faafinayaan dhalinyarta ugu yeedhay like-ta iyo share-ta isaar. waxaan doonayaa inaan idinka shaafiyo arrin wareegaysa maalmahan baraha bulshada oo dhalinyarta dadka aan u bixiyay like-ta isaar oo wax walba warkadeeya ayaan doonayaa inaan idinka shaafiyo. waxaana uu shaaca ka qaaday in la diiwaan geliyay hantidiisa markii loo magacaabay wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya. maalintii shaqada aan bilownay dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre, maalintii sidaa markii la noo dhaariyay dowladda qof walba way u yeedhay, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisu qof walba foom baa loo dhiibay. waxaa lagu yidhi foomka waxaad ku buuxisaa mood iyo nool waxaad leedahay ku buuxi baa la yidhi, saxeex xidh dabeetana halkaa dhig baa la yidhi. waxaanu intaasi ku daray in aanay waxba ka jirin xogo been abuur ah oo la xidhiidha 4 guri iyo 4 dabaq oo Muqdisho ku leeyahay. waa December 1900 iyo 86 wey. December baan imi aqalkayga ugu horeeyay Muqdisho aan ka iibsaday. Muqdisho guriga maanta la wareejinayo ay 4 dabaqa, 2 dabaqna waa hotel, dabaqa labaadna ana isku tala galay inaan xafiis ka dhigto aan ummadda Soomaaliyeed ku tababaro ama waxaan doonayaa ku sameeyo. ka hooseeyna waa makhaayad weeyaan, waa restaurant. 4 weeyaan, 4 waxa ka qiimo badan aqalada kale meelaha kale ka iibiyay. marka waxaan idin sheegayaa ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa cidda arrintaas siyaasad uga golle aan ogahay aniga cambaar ay iyagu leeyihiin dusha iga saari kari maayaan. Cabdiqani Maxamed Dhago, Radio Boorama.